Wararka laga helaya deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay ku waramayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya ay deegaanka Ceel Baraf ee gobolkaasi ku xireen xubno ka mid ah ergadii soo dooratay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Ergooyinka la xiray oo isugu jira rag iyo dumar ayaa waxa ay wararku sheegayaan in ay gaarayaan ilaa 50 kuwaas oo tagay deegaan hoostaga degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaana ay ka mid ahaayeen ergooyinkii tagay deegaanada ay maamulaan ururka Al-Shabaab. Warar kale oo madax bannaan oo aan la xaqiijin ayaa sheegaya in ergooyinka lagu xiray Ceel Baraf loo diiday cuntadii iyo weliba in ay la xiriiraan ehladooda kuwaas oo dhibaatooyin culus ay soo wajahday. Mas'uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo saraakiisha ciidamada weli kama aysan hadlin xariga ergooyinka ka midka ah kuwii soo xulay xildhibaanada golaha shacabka. Waana deegaankii labaad oo ka tirsan maamulka Hirshabelle ee lagu xiro ergooyin tagay deegaanada ay maamulaan ururka Al-Shabaab kadib markii toddobaadkii hore lagu xiray magaalada Beledweyne xubno ka mid ah odayaasha dhaqanka soo xulay xildhibaanada golaha shacabka ee tagay deegaanada ay maamulaan ururka Al-Shabaab. 2 toddobaad ka hor ayaa Al-Shabaab waxa ay soo saareen warqad ay ku dalbanayeen in dhammaan ergooyinka iyo odayaasha dhaqanka soo xulay xildhibaanada golaha shacabka ay tagaan deegaanada ay maamulaan ururka Al-Shabaab si cafis loogu fidiyo. Cabduqaadir Maxamed, warbaahintiisa Muqdisho.